حسب وينها دلتشير فرعيس السودان أي حفيز مهمة كفرتي مقالة خرطوم حسب دلتشير لانتيس السودان أي لحيا لباتنك أغسطس لبدا كون إيا لحيا طبانك كفرتي حارون مقالة خرطوم taasoo qayb libaax leh ka qaadan doonta dardargelinta howlaha xisbiga iyo u adeegida bulshada xafladda furitaanka xafiiska oo ka dhacday isla goobta xafiiska laga furaya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka kala socday madaxda xisbiyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan safaaradda Soomaaliyeed madaxda ururada ardayda Soomaaliyeed hoggaanka golaha abwaanada Soomaaliyeed ee Suudaan salaadiin ganacsato iyo qaar kamida madaxda haweenka ururada haweenka Soomaaliyeed ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xog hayaha xisbiga Dulcir laantiisa Suudaan Abwaan Faytaan Yuusuf wuxuuna si diiran u soo dhaweeyay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabada furitaanka xafiiska gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mudane Dr. Maxamed Ali Taaj ayaa wuxuu sheegay ujeedada iyo hadafka laga leeyahay xafiiskan wuxuuna ku tilmaamay inay tahay helitaanka xarun Soomaaliyeed oo bixisa adeegyada la xiriira tababarada iyo waxbarashada gudoomiyaha xafiiska tababarada iyo tacliinta xisbiga Dulcir farciisa Suudaan Dr. Khadiija Mohamed Aadan oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay in ujeedada ugu weyn ee loo furay xafiiskan ay tahay fududeynta ka qayb qaadashada kobcinta waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka barata waxayna sheegtay in xafiiska tababaradu diyaariyay dowlooyin iyo barayaal aad muhiim u ah isla markaana waqti qaadatay xulitaanka maanta loo furay markas haldoon iyo xisbi Dulcir xaruntiisa ee Suudaan anigoo ku hadlaya sidoo kale afka mudarribiinta ama markaska tadriib xisbi Dulcir haldoon markaska haldoon waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysato waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad waxaad ka heli doontaan insha Allah dowlad aad u kala duwan oo maaragtaa haddii ahaan lahayd macrifi idaari saluuki siyaasi ijtimaaci ayno waxaa sidoo kale ugu talagalnay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iidaan iyo kor u qaadka bulshada weyn ee Soomaaliya waxaa kaloo isla goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xafiiska siyaasadda xisbiga Dulcir laantiisa Suudaan Abwaan Maxamed Ali Maxamed waxa uu sheegay abwaanku in xisbiga Dulcir uu dhisayo dhalinyarada isla markaana ku dadaalayo soo saarista hoggaanka maanta iyo bariba وتصالة وسوق كوبان وسوق عطي حفيز كعصب وفري إسلام كان وفري كفاية يستيقظ أمان ومدة صوماليات. كبعدي أنا الله يا كلام كاسيا كلام كاسيا ده اسمه سياسي جاي ترجع وحنا وتاجنا هاي هري حبيبة إن عن صوص عنا كوادر وحتى تطوح نقطة وتبرشة الصوماليات لما تد سياسة يدو سياسة كاملة نقول على مستكيسة ساسة يسوس سياسة طريقة يقول القيادة هجامي كل سنة عرفتي هجامي كل سنة مواطنينه هجامي كل سنة صومالينه هجامي كل سنة وحقبة دي وسط سنو ناسي عن قاعد هجامي كل سنة إلا صوص عرضك وعلى هالتالي كل سنة صادق حال إلا صوب حالك أو الصوماليين صوب حال يا هرم هذا كان كسفارة الصوماليات عبد القادر محمد علي يقول لي أوقفت مناسبة كهالله أي شيء إنه أدب بقادين يسون دوين يو حفيز كان عصب وهنا كنت المامي مديمي وقتي لابا هنا لنا سوقي دليل إنه مراكز تنوعنا كلنا أو بعنا عاون إلهي سبحانه وتعالى وحنا وسودي حزب كنا وسودي حزب Dulcir هذا وما سنتين سنتات قيادة الدم الحزب ومدعلنا مرة ما فتحات كسر وهذا حرصة حزبك إذا كان يفرطها وحزب قولي وحزب أمة الصومالية موضوع حزب قولي ما يسترى وقالت وهو الرئيسة حرصة حزب قولي مطالع قيد السودان هيكسي جاي يهرب ديكي أو ذلك حزبك مبادئ يصيرات وكتها مع حزبك لما هو يريد ويشهد أنه ولا حزب الحكم وليه حديث أو فرضان هيك في قدام الكلية ووجدان والحكم وليه هي أكثر من 10 مكاتب ضمانته وحوية وحديث شقية أو نظامسن أو له هيك ودسن يو حوق القيسن
waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ahaayeen suldaan kamaal cali xogayaha jaaliyadda cabdi wali xasan xuseen fadiilatu gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ee wadanka suudaan mudane aadam asad ibraahim gudoomiyaha naadiga qalin maal ridwaan xaaji xisbiga daljir ee faraca suudaan iyo caawan intaan oo isugu yimi danta guud ee ummadda soomaaliyeed gobashaan sharafta leh xafiiskan sharafta leh isugu yeeray waxayna daliil ka tahay xisbiga daljir in uu horseedayo midnimada ummadda soomaaliyeed uuna horseedayo sidii ay ummadda soomaaliya u higsan hadda walaalaha ka muuqata intaana mataqaana aan siyaasadda xariifinta ku hayn ay tashjiiciyaan intooda siyaasadda hadda gashayna ay si hufan oo walaabtinimo ku jirto oo cadaalad ku jirto oo rajul naas fil maqaam muwaasala dhiga ay ku jirto ay ku dadaalaan oo ay tashjiicinaynaa waa idin garab taaganahay baarak allahu fii juhuudikum wa axsana allahu ilaykum kasaarta danahiina qootiyacaka ilaashaa tanaasula wax badan ka tagatayda ha la yeesho istaafula dadkaygow dhaqsaad تقدم لساني أنت يا مرحبا بمن وصال على الرؤوس في المقل قلوبنا هو المحل ويا الفصيح المقعد ويا الفصيح المقعد مقعدي الله الرحمن ويسر يقول لنا يا قبيل قفنا بين المكينين تاسوا واضح وايه soomaalida reebara waa waxay yidhahdaan markay la yaabaan qaab ahaanta ehelka ehel nebiga karoon idan waxaa loo baahan yahay ehel nebiga in la iskaalsadaan dadkoo dhan ay wada socdaan intaasaan kusoo gabagabeynayaa waad aadan umahadsan jiran wilaa caam iyo wilaa qaat anagu boqolkiiba 80 waxaan siinay wilaaga caam 5,000 iyo 6,000 ee soomaalida joogto ay guulana ardada uu mas'uulka ka yahay wilaaqaas oo anagu aan mas'uul ka nahay xisbigana boqolkiiba 20 baan siinay inagu waxaan ugu talagalnay xisbi ahaan inay bishii 3 dowro baxdo iyo dhammaan ayagoo isku jiro doorooyin ay dadka wada qaadanayaan caamka iyo doorooyin inaga inoo gaara